maskaxdaada kobci maankaaga kori macnaheedu waa murtida ku dhaqan maamuuska diintiyo kana sheegtan maadiga mareegteedu waa naftaada mas'uul ka noqo mansabkaaga ha seegin maskax eebba ku siiyana maqaamkeeda ha diidin kor u qaadaha kaabaha bulshada maan kobci السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هدي تامر كوغور يا صوب الله سبسكرايب لايك وذاك أصحاب هذا كنا سؤال وهذا مقال كان وحكو كسابسن yahay saddex cuntooyin oo roon araga fog iyo kan dhow labadaba dad badan ayaa waxay ka cabanayaan xanuunada indhaha ku dhaco oo badankood ka kaxeeya araga dhow iyo kan fog labadaba sidaa darteed waxaa jira cuntooyin hortaga dhibaatooyinka bini'aadamka ka soo wajaha dhinaca araga maadaama indhuhu ay ka mid yihiin xubnaha ugu muhiimsan aadamaha waxaa fiican inuu qofka ilaaliyo caafimaadkiisa isla markaasna quuto cuntooyinka ay ku badan yihiin macdamada lutein-ka omega 3 fatty acids-ka fitamiiniska sida vitamin C vitamin E iyo zinc kuwaas oo kor indhaha ku dhaca haddaba baaritaan iyo cilmi baaris la sameeyey ayaa ifinaysa in cuntooyinkan soo socda badankood ay faa'iido u leeyihiin caafimaadka indhaha bini'aadamka nambar 1 rootada waxaa ku jira maado la dhaho oo indhaha faa'iido u leh awoodda aragga rootada la cuno maadadaas waxaa la geeyaa beerka kadibna beerka wuxuu u bedelaa fitamiin A kadibna fitamiin A-gii waxay isha usii bedeshaa maado muhiim u ah una baahan tahay oo loo yaqaano rodopsin waana maado u qaabilsan aragtida midabka maadada beta carotene waxay kaloo ka hortagtaa dhaawaca sonkorta ay isha gaarsiido iyo cadka indhaha fuula karootada waxaa kaloo ka hortagtaa daawana ay u tahay xanuunada ku dhaca indhaha loona yaqaano muscular degeneration ciladan waxay imaataa qofku markuu duqoobo nambar 2 kalluunka saliidda kalluunka gaar ahaan noocyada loo kala yaqaano salmon sardinas herring mackerel ama halibut waxaa ku badan maadada la yiraahdo omega 3 fatty acids oo u fiican caafimaadka indhaha qofka sida joogtada cuna kalluunka wuxuu iska difaaca 8% ee xanuunada aragga dila waxaa kaloo ku jira kalluunka vitamin D kaasoo ka caawinayo inay indhuhu noqdaan kuwo caafimaad qaba sidoo kale maadada la yiraahdo omega 3 fatty acids waxay jirka kale ka caawisaa inay caabuqa iyo subagga hoos u dhigto nambar 3 ganleyda waa mid ka mid ah xubuubta ugu wanaagsan dhanka aragga waxayna bixisaa maadooyinka ay ka mid yihiin lutein kuwaasoo u wanaagsan indhaha waxayna indhaha siidaa qofka hadduu ka cuno koob barkiis 1.8 gram oo midabeeyaha indhaha galeydu waxay bixisaa vitamin C vitamin B5 acids-ka sidoo kale waa il muhiim ah oo laga helo macaadinta ay ka mid yihiin magnesium phosphorus iron copper zinc oo jirka bini'aadamka ka caawiya in uu kansarka macaanka iyo wadna xanuunka iska difaaco waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid channelka araadaadana aad nooga reebtid commentiga. Ni video kan ku